sheekh Muxudiin Aadan Qaasim ku magac dheer Sheekh Muxudiin Salafi oo ka soo kici timay maalinkii shalayto gedida diyaaradaha Aadan Cadde International Airport ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu soo gaaray isla shalay galab magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed halkaasoo uu u yimid sidii uu u daafuri lahaa xarunta ilaajka Daarul Khair faraceeda labaad taasoo maalmihii ugu dambeeyay qabanqaabadeeda iyo sidoo kale soo dhaweynta safarkiisa ay ka dhex socotay dhismaha xarunta cusub. sheekha oo dhismaha xarunta cusub toos ugu soo gudbay ayaa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo sida odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, siyaasiyiin, culamo, haween iyo marti sharaf kale. ugu horeyntii qaar ka mid ah dadkii soo dhaweyntiisa ka soo qayb galay sheekha ayaa waxa ay cabireen sida ay ugu faraxsan yihiin in uu Sheekh Muxudiin Salafi soo gaaro ama u soo gaaro magaalada Baydhabo si uu u dibiro baahiyaha bulshada reer Koonfur Galbeed ee ugu imaan jirtay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoona safarkaasi dheer ay soo gali jireen beddelkeeda ka doorbiday inuu isaga cagihiisa ugu yimaado halkaasina ama ugu qidmeeyo gudahooda magaalada Baydhabo. ودي هجامي وشيء مهدي وعمرني كوي وعالم كه والسجاني شمودين بلد كعقراب بلد كعقراب شرف ينعم يد بلا مقلة هو كشرف كعقراب ما يكين شيء أيضا تمر لك تبى يدور سجل همر ورا كترتي كترتول فرق ودنا لك ديني دكتور أريكي بكمله ومدينة دقن إيبك مدعي عن الأرض فيصل الله أنتون الدحومة جر وورارة دجنلة دساي دروب أو إبقى هاي اللي أجران كهم الدين منهم أنتوا كترتول بعده أو كددا أو كده هذا من هذا الكيد مبادئ من تأكيد كم الدركة يودركة الشرف وورارة حكدوا أنت شيخ محدين سلف حبواو إلهي سلامتيس حكدواو بيدق جناي حكدواو أنا علماء الدين كبدوا ما حكي دوايانا سلامت إسلام يا حكي دوايانا بعد السلام أنت إسلام كان سكوي أما تأمتم هذا أرغاس ودوينتيو ما لكن كباه جسا هذا الشيء ديا أمتم ما كبدتي واردة كبدتي جنك كبدتي سحرك كبدني ويبا ايدي ايد أرضو هوك لنكساري أما سأنقويت إن هذا كتاب كريمك عددت كداويت سن إلهي بأري ونزول من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن قصة إلهي داوديس نعيالب ننقواري إني علينا تكداويت إلهي الله شيء إلهي فمليسة تكداويت يحكي قضوايانا إذا يكرا ما يبغى الإسلام أنا دك أمة محمد وأنا دك مؤمنين وأنا دك كتاب القرآن الكريم كآمن سيا أنا دك سنة الرسول كآمن سيا أنا حديث سحر أما شجنة أما سئل أما سئلت صوتا نتريما إلهي سبحانه وتعالى رسول يبان لسحري ما يهندتي سورة الفلق إلى سورة الناس من أول إلى آخر تمكاس إيكوب كاس آيات ما يلحندتي نبغى لسحري سحر كسبب تيسا لحندتي تمو إيكوب كسورة تمو إيكوب كي قلنا ده رسول كلا كسحري سورة كاستمس آيات كتوس أخيوب قلنا ده كفر ماسي أنا سحر كاسو أنتاس ديري يا أرجع البلد كلها هكذا ونبي إلهي كبري أو أرجع على حكمة أما القرآن أما الدين إن هذا إسلامكم العلاج أننا تبقى فرسي محجينه. ugu dambeyntii xafladda ayaa lagu soo gabagabeeyay khudbadda sheekha xarumaha ilaajka Daarul Khair gaar ahaan xafladdii ka dhaceysay faraca labaad ee xaruntaasi ay ka hirgelisay magaalada Baydhabo waxa uuna sheekha muhiimadda siiyay sidii uu ula wadaagi lahaa bulshada mahadcelin kadib farxad ku saabsan in maalmaha soo socda uu ugu qidmeyn doono si bilaash ah ayna isku baran doonaan dadka kuwooda heerarka kala duwan iyo inta xaalkooda uu adag yahay. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحمد لله والعليال. dadkii soo dhaweeyey reer Baydhabo idin salaamay, salaanta islaamka idinka salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. maasha allah, soo dhaweyn wanaagsan. saa ii soo dhaweyseen jannatul firdowsi alaclaa, allah idinku soo dhaweeyo. baaraka allah fiikum. sidaa ii karaamayseen ilaahay subxaanahu wa tacaala jannatu naciim, jannatu firdows, allah idinku karaameeyo. baaraka allah fiikum. insha allahu tacaala Baydhabo janaay way soo dhaweyseeno insha allahu tacaala. anana waxaa ilaahay idinkiisa ilaahayna weydiisanaa dadkaas muslimiinta dhibaateeyey ama sicirka la dhibaataysan oo muslimiinta 24 saa sicirka la wareegayaan. insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaa inay ilaahay ugu garab galo dadka isha la dhibaataysan. insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaa إن إلهي سبحانه وتعالى يقرب قاله تفتيد إلهي سبحانه وتعالى أقبل يقدقه نتقى حسب الذي واتيس إن شاء الله تعالى حاليا المدة المسلمين تاه وحسب الذي واتيس إن شاء الله تعالى إلهي بوحشة فيه وأن ذلك دون بإذن الله الباري. قل إن شاء الله تعالى ميشنا يذيك سوق قاميي نتقى المسلمين تو إن شاء الله تعالى وحاقوا يسينا نتقى رير بالدوام أما نواحي هذا الجوهر إن شاء الله تعالى سبيا إن شقة يهوشي يعني نقول نذن إن بالله إن شاء الله تعالى. وحلنا مقدرك مسلمين تو نصد على شقة وشقة أبد وشقة شقة الود ذي كلماها وهذا الأركين على دقلت منا إن شاء الله تعالى. نصر إلهي نبريا ونصد عليا إن شاء الله تعالى. شقة سيد إلهي نوقر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. xarunta cilaajka Daarul Khayr faraceeda magaalada Baydhabo ee maalinta beri sabtida ah shaqadeeda si toos ah u bilaaban doonto ayaa waxaa xaadir kugu ah sheekha xarunta Sheekh Muxudiin Salafi. haddii aad doonaysana waxaad ugu soo hagaagi kartaa xarunta wadada weyn ee ka soo leexata isgoyska Somtel. wax yar haddaadna u soo socoto amaba in yar dhaafto masjidka الرحمة إكس أوغادين كلوجو مجعابي جري حافظ بردالة أي حارون تدار الغير كاسو قمن دون تادين عبديها سيدو كلنا مركات كإما دو قرح كصباح إسقويس كبقولي ذلو يقانو أياد مديك كأركي دون تا حارون تدار الخير أما بلسو حرير هول وذين ذا حارون تا أو كوسو دوينيان لهجذها مايجا يوم حاتريجا وادوستي فرسمدي عدنتي أنا محمد يولكا أنت ربحت لما كل مدوننا صحابي نبت قليو